kelimadani waxay ku socotaa gabdhahayga aan adeerka u ahay een abtiga u ahay ee ku nool wadamadan reer galbeedka khaasatan waxaana leeyahay jacayl aan idiin qabno daraadeed ayaanu kelimadan idinku soo gudbinaynaa. waxaad ogtiin Allah subxaanahu wa tacaala in uu gabadha muslimadda u nicmeeyey, ilaahayna uu iimaan siiyey kitaab qur'aan ah iyo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xadiisiisa inuu siiyey. waxaad ogtiin ilaahay inuu ilaaliyey gabadha muslimadda karaamadeeda iyo sharafteeda inuu ilaaliyey, taas oo keentay maadaama gabadhu ay tahay shay qaali ah oo dahaba oo dheemana oo aan la gaari karin, cidda gaari karta ay tahay oo kaliya Allahu rabbul alamin. Allah abuuray subhanahu wa ta'ala ayuu Allah wuxuu u doortay gabadha muslimadda ah inay jirkeeda qariso, oy is asturto, oy jilbaabato, oy xijaabato mar walbaba. laakiin maxaan kelimadan hadda oga dan leeyahay, gabdho fara badan ayaa markuu kuleeluhu yimaado ayagoon garanaynin kulaylka ka dambeeya ee cadaabka Allah, ayagoon garanaynin kulaylka cadaabka iyo jahannamo aan garanaynin, ayay waxay dhahaan asagoo uu shaytaan u sheekaynayo iska hawaysta, jirkana u raaxeeya, dharkana iska yaraysta. arrinta ayada ah waa arrin khatar ku ah gabadha muslimadda ah. diinteeda ayay wax u dhimaysaa, akhlaaqdeeda wax u dhimaysaa, toosnaanteeda diinta ay toosan tahay ayay wax u dhimaysaa. waxaan kugu yeedhayaa gabadhaydii, xijaabku waa dhowrsoonaan, xijaabku waa iimaan, xijaabku waa cifo, xijaabku waa akhlaaq, asturku waa wanaag, waa sharaftaada adduun iyo aakharaba. ilaahay baa kuu liibaanaya subxaanahu wa tacaala. hadduusan wanaag iyo maslaxo ku jirinna ilaahayba ma waajibiyeen. waxaan aad u rajaynayaa in aadan ku xisaabtamin inaad samarka soo socda dambe gaari doonto, maxaa yeelay goor aad dhiman doonto war kama haysid. haddaad maanta dharka iska dhigto ama aad dharka fudaysato adigoo kuleylkan ka baqaya, miyaad u adkaysan kartaa? jirkaagu sama u adkaysan karaa cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala? ilaahay waxaan kaaga baryay hadiyada ilaahay ku siiyey inaad intaad qaadato oo aad fahamto oo aad ku dhaqanto, gabdhaha kalena aad sii gaarsiiso. qofka shay ilaahay darti ooga tagana ilaahay baa wax ka khayr badan siiya, maslaxaduna taasay ku jirtaa. ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu gabdhaheena noo soo hanuuniyo, wanaag iyo khayr uu ugu bedelo. wajazaakum allahu khayran wa ila liqaa'in aakhar. wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.